soo dhaweeya wasiirkii caafimaadka ee dawladii ku meel gaarka jamhuuriyadda Soomaaliya Dr. Abdul Aziz Sheikh Yusuf. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على خير نبي اصطفى وإلى هداية العالمين أرسلا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. مدنيال كبرلمانك odayaalka amaba aan ilaahay boqorka iyo odayaalka kale oo matalaya jaaliyada culamaa u diinka gabdhaha Soomaaliyeed kullaba laba celinaya waxaan ogahay doorka ay qaataan xagga dhismaha qaranka iyo xagga siyaasadana haatan hadda nuguba dhaafaba oo ayaga maaragtay hogaaminaya dhammaantiin waa idin salaamaya walaalayaal sida la og yahay waxaan u baahanahay dawlad waxaad ogtihiin dhibaatadii aan soo maray oo dhiig daadanaya lahayd oo maal badan oo burburay lahayd oo xadgudub lagu xadgudbay dadkeena iyo gabdhaheena oo kufsi iyo wixii la mid lahayd iyo dhibaatadii aad iyo aad u faraha badnayd waxaad xusuusantihiin dadka Soomaaliyeed oo ku dhintay ilaa muddadii dawladeennii naga burburtay oo annaga ama dhexdeena ha ahaato ama dhibaato banaanka nooga timid ha ahaato amaba neejar ahaanba waxna soo gaaray ha ahaatee waxaasoo dhan waxay caddaynayaan inaan baahi dawladeed qabno baahida dawladda ma ahan dad kooban kaliya inay wax qaban karaan laakiin waxa wax qabanaya waa shacbiga Soomaaliyeed waa adinka sida aad wax u qabanaysaan waa inaad wixii khaldan toosisaan waa inaad wax wanaagsan ka sheegtaan wixii la qabto wanaagsan waa inaad aad ugu soo celcelisaan iyo wixii la mid ah waa inaad ka ilaalisaan kelimadaha aad iyo aad u dhibka badan oo laga yaabo inay sababaan burbur iyo wixii la mid ah sida ay tahay xaqiiqadu arintaasi waa dhib badanta marka maxaad ku ilaalinaysaan adinku haddii aad qof doorateen oo haatan sida aad u ayidaysaan aad ayideen adinkoo ku maadsan haddana maxaad ku ilaalinaysaan oo ku dhowraysaan waxa wax lagu dhowraa waa dastuurka waddanka u yaala waxa weeye social contract waa wax diinteenu iyo dhaqankeenuba ogol yahay maxaa yeelay qaar baa yiraahan kuwan dadka baadiyeynayo gowracayo culimada laynaya ayaa waxay yiraahan quraankii baa lagu bedelayaa macnuhu saas ma ahan ee waa contract dhex maray shacbiga ama mujtamacaas dhex maray haddaan aniga iyo nin kale guri ama qof kale aan leenahay businesskayga haddaan ka qorano waxa aan anagu u baahanahay oo nidaam ah oo aan samayno islaamka iyo diintiisa iyo quraanka midna ma diidana waana wax wanaagsan marka dastuurku waa kaas asaga ayaad ku ogaanaysaan qofkii adinku aad doorateen oo aad u igmateen wax badan hadduu ka leexdo
asagaasaad akhrisanaysaan oo waxaad leedihiin wixii aanu igmanay waxaan ahayn buu wadaa xataa iban hadday dhacdo inuu wax fara badan qofkaasu wado haddii aan wixii loo igmaday ahayn anugu waxaan ahay xildhibaan haatan ka horna wasiir baan ahaa dhowr goor haddaan haatan waxaan xildhibaanka ahayn aan qabto oo wax badan aan maaragtay waxeeyo waxba kuma aanan tarin maxaa yeelay waxaad ii igmatay waxaan ahayn baabaan wadaa qof walbana wuxuu leeyahay job description ama delegation of work ayaa jira waa inuu qofku shaqadiisa qabtaa sida adinku aad marka aad dawladdiina adinkoo aan ku caranoo burburin sidii tii hore aad ku toosin kadhaan waxa weeye in ay qaanuunka idin yaala oo iyadoo laydinka matelay la sameeyey naguma jiro halkaana ma fadhiyo caawa qof aan la matelin oo ayaan xaq ku ahayn inuu raaco dastuurka maxaa yeelay xataa qaanuunka dadka baadiyaha jooga oo aan qaanuunka aqoon qaanuunku waa qabanaya marka adinka iyadoo laydin matalayo ayaa dastuurka la sameeyey marka wixii aad adinku ka gaftaan iyo mas'uul weyn wuxuu ka gafo intaba waxa weeye waa lagu jeegaraynayaa meesha kaliya aad wax ka ogaan kadhaana waa qaanuunka oo la raaco oo aad adinku qofka aad qaanuunka khasabtaan haddii aanay dhicinin waxaa dhacaysa sidayadii hore dawlad xoog badan oo aad u wanaagsan oo wax badan tartay baan lahayn dawladdii waa burburin annagaa iska burburinay waxaan ku burburinay waxay ahayd dawladdu waxna nagama maqlayn waana naga xoog baday marka markii dambe wax la dhacdhacaba waa la soo dhigay oo iyadii baa la riftay marka hadda aqoonsada qofka waxa aad u igmateen inuu iyadii qabanayo iyo inuu wax kale qofku qabanayo iyo wax kale inuu qofku qabanayo waxaa xaqiiqa ah waxaan anugu ka mid ahaa aad buu u mahadsan yahay ninka hadalka noo qaybinayay waatuu yidhi cabdi bare ayaa baasiyey it's good aad bay u wanaagsantay qofkii asagu diidayna xataa shaquu ku hayaa adiga kii baasiyey shaquu ku hayaa kii diidayna shaquu ku hayaa oo shaqadu ku hayaa waxa weeye waxba ka xun meesha مثلا 10 wasaaradood baana loo keenay 18 wasaaradood baana la filay marka waxa la isi saaray 7 wasaaradood 7 wasaaradood hawloodii ma qaban karaan wasaarad walbaba qaanuun gooniya ay lahayd kulligood baa waxa la isku yiri horumarinta bulshada qofkii yiraahdo waxaan ma dhici karaan structure-kan waxa laga qabto hawl buu ku hayaaye qofku xumeeyay ama dawlad burburiyay ma aha waxay tahay marka adigoo aan gaarin heer aad ku burburisid isku day dawladda inaad toosiso baahidaas aad u qabtaa sharafkaagii bay soo celinaysaa haatan waxa jira balday markaan haatana anagu waa ognahay duwalka dariska nooca waxay nagu wadaan wax fara badan oo aan danaheena ahayn waxay rabtaa hadda Kenya in ay badaheena ilaaliso dalka ugu badda dheer baan nahay Afrika ama adduunyada siday u badan tahay marka waxay garaan weydiisanaysaa United Nations oo waxay leedahay 10 milyan oo dollar baan u baahanahay oo aan badda Soomaaliya ku waardiyeeyo yaan ka waardiyeynaya dadka extremista al-shabaabka iyo wixii la mid marka 10 milyan markaad sii fiirisid ciidanka lagu tababarayo iyo qalabka loo soo gadayo iyo waxaas ka mid oo waay adiga ciidankaaga loogu tababari waayay qalabkana lagu siin waayay dawladdu waa diiday wasiirka arrimaha dibadda hadda waa uu diiday waa uu hor istaagay fiitu ka hor istaagay wuxuu yiri waxaan la wado wax jira ma aan garaana lagu qaadan maayo
waxay ka mid tahay waxyaalaha macnaha leh oo aad tahay inaad xustaan oo aad soo qaadaan haatan ka hor annaga baddayada si khalad ah ayaa mas-uuliyiin u maamuleen adinkuna waa diideen dhawaaq aad u sarreeya aad ku diideen adinkoo ku mahadsan marka toosintu burburin maaha toosintu burburin ma ahan ee waa toosin walaalayaal waxay tahay annagu inaan is-aqbalnaa teeramka anugu aan isticmaalayaa waxa weeye waxaan u baahannahay dhibkii na kala gaaray inaan halmaalno uma baahin ee waxaan u baahannahay dib inaan ka heshiino lama dhihi karo wixii dhintay wixii ba'ay maalkii burburay maalka la kala haysto hadda ha la halmaamo may waa in aan dib uga heshiinaa waxa maqani waa dib u heshiisiin marka ayadaa waxaa soo noqonaya kalsoonideedii oo waxyaalaha annagu aan weynay kuwii ugu qaalsanaa laakiin haddaan nidhaahno aan halmaano oo aan horay u orodno si aan wax wanaagsan u qabanno ma qabanayno wax wanaagsan wax jirana maaha waxa kaleetoo jira oo haddaad shacabkii tihiin aad wax ku waardiyeynaysaan wey anugu waa dhaartay waxaan ku dhaartay inaan ilaaliyo dastuurka iyo shuruucda kaloo waddanka u yaal dastuurku hadde waxa weeye dowladda federaalka oo Soomaaliya anigoo ku dhaartay oo aan yiri waxaan isimka Ilaahay ugu dhaaranayaa in aan ilaaliyo dastuurka iyo shuruucda kaloo waddanka u yaala haatan haddaan ku iraaho war federaaliya waxaas uma jiraan hal goynina maxaad ii qaadanaysaa waa in qofku u hoggaansadaa shuruucda idin taala oo ummadda u taala oo la sameeyay oo la idinka metelay dawladdu waa dawladda federaalka oo Soomaaliya waa inaan anagu is aqbalaa oo haddii ama dawlad goboleed ha ahaato ama ha ahaato region ama ha ahaato degmo ama ha ahaato tuulo markii aan burburay wax alla iyo wixii aan samaysanay waa inaan is aqbalaa waa inay dawladdeenu aqbashaa dadkayaguna waa inay dawladdiisa aqbalaan haddii wax ka khaldan yihiin waa la sixi karaa laakiin waxa ka horeysa in la is aqbalo ciddii tiraaha dawlad goboleedkaasaan maaragtay samaysanayna ama samaysanay oo Soomaali ah waa in sidooda iyo magacooda lagu aqbalaa sidoo kale waxaa la mid ah region hadduu yahay sidoo kale waxaa la mid ah degmo hadduu yahay sidoo kale waxaa la mid ah tuulo hadduu yahay waa in la is aqbalaa waa in la is ictiraafaa wixii dhibaato ah waxaa lagu xallin karaa dee arrintan ha la cadilo malaha halkan ma ay geli kadho degmo ama gobol ma geli karee halaga saasaa la isdhihi karaa walaakiin haddaad tirahayd ku yeeli gobolkii waxaa ku yaalay iskuul ama jaamacad ama institute waxaa ku yaalay haddii alla ku rayo isbitaal waxaa ku yaalay ceel biyaa lama wada joogo hadda meelo badan baa la wada joogin oo dadkii waa isdilay dib heshiisiin iyo kalsoonidii lama soo celin marka qof walbaba meesha uu joogo ku aqbal marka hore xumay marka wixii aad qaban kadho oo aad hagaajin kadho marka ka bacdi raadi marka ka bacdi waa inaad raadisaa walaakiin ha oraninkaasi ma idinku mahad celinaya sida weyn oo aad noo soo dhaweyseen sida weyn oo aad dawladda ama u kaalmaynaysaan ama war wanaagsan uga sheegaysaan walaakiin ma xuma waxba khaldan haddaad tiraahaan xataa oo wixii khaldan aad tilmaantaan haddaan mithaal soo qaado aanu wasiir baan ahaan jiray waxaan ka ahaan jiray wasaaradda caafimaadka waa very important dadka Soomaaliya boqolkiiba in 90 ka badan ma ay heli karaan in ay inta tagaan nin dhakhtar ah
oo halkaa kule clinic lacag inta siiyaan oo markaa ka bacdina investigationkii ay bixiyaan x-ray ama inta kale waxay u baahan yihiin waa maxay waxay u baahan yihiin free of charge medical ama health care waa inaad raadisaa adigu waa khalad waa sheegi kartaa si aan u sheegayaa u sheegi kartaa waxbaad toosinaysaa ee wax bixin maysid markaa